Coronavirus waxa uu ka kooban yahay bahwadaag ballaaran oo xanuun ku keeni kara bani'aadamka iyo xayawaankuba. Cudurkani waxa uu markii hore ka bilowday magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, waxaana si gaar ah loogu magacaabay COVID-19. Dadka uu xanuunkani ku dhaco waxaa laga yaabaa in lagu arko calaamado xanuun oo la xiriira dhinaca neefsashada, sida qufaca iyo neef qaadashada oo ku yaraata. Calaamadaha kale ee cudurkani lagu garto waxaa ka mid ah qandho, muruq xanuun, madax xanuun, riix-raaxyo iyo shuban, sida laga soo xigtay xarunta Kontaroolka iyo ka Hortagga Cudurrada ee Center for Disease Control and Prevention ama CDC. Cudurkani waa mid dadku ay isku gudbin karaan markii ay isku dhow yihiin ama ay isku jiraan ilaa iyo 6 tillaabo. Waxa uu ku faafi karaa dhibco aad u yaryar sida candhuufta oo ka soo baxa habdhiska neef-mareenka qofka xanuunsan marka uu qufaco ama uu hindhiso. Dhibcaha yaryari waxay dadka kale ee qofka jiran ka agdhabi ka geli karaan afka ama sanka. Khubarada caafimaadku waxay soo jeedinayaan inaadan gurigaaga ka soo bixin haddii aad xanuunsan tahay. Xarunta Kontaroolka iyo ka Hortagga Cudurrada CDC waxay ku talinaysaa inaad ku dhaqdo gacmahaaga saabuun iyo biyo nadiif ah ilaa iyo 20 ilbiriqsi, gaar ahaan markaad qufacdo ama aad hindhisto. Ka taxadar inaad ka agdhawaato dadka xanuunsan, iskuna day inaadan taaban wejigaada.